بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo wali ku guda jira martiqaadkii rasmiga ah ee uu ka helay dhigiisa madaxweynaha dalka Liibiya mudane Maxamed Al-Manfi ayaa maanta lagu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada ee caasimadda Tripoli. kadib labada madaxweyne ayaa yeeshay kulan ay kaga arrinsanayaan xoojinta cilaaqaadka labada dawladood. kulanka madaxweynaha waxa uu heliyay wafdigii wasiiradaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee madaxweynaha jamhuuriyadda la socday. madaxweynaha dalka Liibiya Maxamed Al-Manfi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in walaalkii madaxweyne Xasan uu ku soo dhaweeyo dalkiisa labaad ee Liibiya. waxaanu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay booqashada Soomaaliya iyo horumarka ay sameysay dhinac walba, isagoo tilmaamay in Soomaaliya uu diyaar u leeyahay xiriir intaa ka qoto dheer oo ka sii wanaagsan. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahad celiyay madaxweynaha dalka Liibiya Maxamed Al-Manfi iyo xukuumaddiisa sida diiran ay u soo dhaweeyeen isagii wafdigiisa la socda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tilmaamay in Liibiya u yimaadeen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen xiriirka labada dawladood. kadib madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa booqasho ugu tagay ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Cabdulxamiid Dabiiba. madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaaraha ayaa markhaati ka noqday heshiisyo badan oo khuseeya xiriirka siyaasi ee labada dawladood, amniga iyo sidii xal waara looga gaari lahaa dhibta tahriibta Soomaalida. Allah mahad leh.